xafladani lagu taageerayay musharaxa madaxtinimo ee maamul goboleedka Puntland Cali Cabdi Warsame ee lagu qabtay caasimada labaad ee dalkan Sweden iyo Taboria ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen jaaliyada ka soo jeeda gobolada Puntland ee ku nool dalkani gaar ahaan magaalada Taboria. xafladan oo ay jaaliyadu ku muujinaysay taageerada ballaaran ay u hayso musharax Cali Cabdi Warsame ayaa sidoo kale waxa ay ahayd mid ay ka soo qayb galeen salaadiinta waxgaradka iyadoona sidoo kale dadkii ka soo qayb galay intooda badan ay sheegeen inay ku taageersan yihiin xilkan inuu qabto maadaama sida ay sheegeen uu yahay xubinta ay ku tuhmayaan in markaasi uu ku habboon yahay hanaanka madaxtinimo ama maamul ee deegaanada Puntland. haddaba ugu horeyn xafladani ayaa waxa ay ahayd mid u dhacday murashaxan waa la dhacsanahay dadka yaqaanay iyo dadkii la shaqeeyay iyo dadkii wax la soo baran jiray iyadoo aan qabiil iyo isxigsi ahayn runtii waxay ku amaaneen nin ummadda dhexdhexaad u noqon kara waxay ku amaaneen nin cafiif ah oo ka dhowrsoon tuugo iyo khaa'inimo iyo been waxay ku amaaneen runtii nin hawlkar ah oo geesi ah oo waxa uu rabo salkooda gaara waxa weeyaan Cali Xaaji inuu guulaysto aad iyo aad baan wada faraxsanahay taa waxa ku cadeynaysa shanta Soomaaliya oo dhan halka way fadhidaa waxayna diyaar u yihiin soo dhaweynta Cali Xaaji beenta miyaa taas goostay inaan taageero Cali Xaaji Maxamed Warsame shakhsiyan haddii uu ku guulaysto alxamdulillah haddii kale cidii soo baxda baan taageeraynaa waxaynu halkaan isku nimidna waa taageerada Cali Xaaji Maxamed Warsame waana taageersanahay ilaahay hadduu dalka iyo dalka khayr u yahay فيتفضل وانا ما سنتي علي حاجي وحبان كحولن انغا تاغيريالكا او سبوت كيس اسكو سو بخني وحبان كحولن waxaanu ku xulanay waxa weey wax maanta Puntland u baahan tahay wax baahida maanta taagan ee Puntland u baahan tahay ayaa lagu xushay rag waa musharaxiintu waa badan yihiin kuwa waxa jira shaqadooda aan goob joogay rag badan oo aan naqaan kuwa soo shaqeeyay oo ku maadsan shaqadooda laakiin maanta Puntland waxbay u baahan tahay anoo waliba hadda in xasuusinaya dareenka codkiisuna uu ahaa Puntland kala maqnaanshaha maanta ay kala maqan tahay dadkii wada dhistay ay ugu weyn tahay burburka dhaqaale ee baahsan ee ganacsatadii dalka ka baxday uu aqoon iyo saaxiibo badan ku leeyahay soo celintooda aaminaadda iyo diinta uu nasabka u yahay ee lagu yaqaano waxaan ku taageeraynaa aqoontiisa waxaan ku taageeraynaa dhalinyaranimadiisa waxaan ku taageeraynaa codkornimadiisa sidaas baan ku taageeraynaa ma iska taageerayno nin kastana xaq wuxuu u leeyahay hadduu wax u soo bartay in aan lagu xagxagan inuu isu soo taago in lagu taageero buu xaq u leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantahay magacayga waxa la yiraahdaa Maxamuud Cabdullaahi Nuur aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladan waa xaflad aad iyo aad u qiimo badan Cali Xaaji waxaan u arkaa nin dhalinyaro ah oo mustaqbalka Puntland ah waa nin aqoon-yahan ah waa nin firfircoon waa nin ay u baahan tahay maanta Puntland xag dhaqaale xag nabadgelyo iyo xag horumarineed waxaan isleeyahay waa ragga hadda maanta musharaxiinta ragga ugu firfircoon oo ugu habboon baan ugu aaminsanahay waxaan ku taageeray fikrad ahaantiisa iyo mabda uu aaminsan yahay oo in Puntland horumardo iyo Soomaaliya ay midowdo oo Soomaaliya dawlad federaal ay ka hanaqaado oo aad iyo aad ayna jiritaankii Soomaaliya oo muqaddaska ah soo laab haddii aanu ku soo noqdo musharaxa Cali Xaaji Warsame oo caawa aanu u dhignay xalfadiisa halkaan oo aad u jeedaan dadweynaha inta tira leegna ay ka soo qayb galeen waxaanu anagu rajaynaynaa Cali in ilaahay uu ku guuleeyo xilkan uu isku taagay waa xil adag waanu dareemaynaa sida uu ku jiro loobinka iyo xaaladda iyo halkay tahay Cali waxyaalaha aanu ku taageerayno waxa kamid ah qofku waa inuu cadaaladda horumarka iyo shaqadii uu ka soo shaqeeyay horay oo ahayd shaqo aad iyo aad ay ugu bogeen shirkadihii iyo ummadii meesha joogtay gudaha si kastoo taaba xafladan ballaaran ee lagu taageerayay musharax Cali Xaaji Warsame ee lagu qabtay caasimada labaad ee dalkan Sweden ayaa ahayd xafladaha ugu ballaaran ay soo qaban qaabiyeen isla markaana ay ka soo qayb galeen jaaliyada ka soo jeeda deegaanada Puntland ee ku nool dalkan Sweden iyadoo sidoo kale ka qaybgalayaashana intooda badan ay sheegeen inay ku dhiirigelinayaan madaxda soo socota ee maamuli doonta maamulka Puntland inay ka qayb qaataan horumarinta deegaanadaasi Bashiir Ugaas Somali Channel TV iyo Taboor